أنا أقول لك ما أصلا قلت السؤال عن سود وينيا ولا هذا الله خاطرنا سومال لان عن سحيبتي برلمان كسومال لان يقول عن سحيان إن لو ما عمل الله ولا هالله بقول كل بقول سود ويننا وأنا كفر حسنا وقال صلى هاي سود ويننا خاطمه يا سومال لان ولا هذا الكود خاطمه يا سومال لان الشركة يكون سود ويننا خاطمه يا سومال لان سيد البرلمان كل أسحي ويقول لهم معمول وجبين ويقول الله ويقول الشياب ويبوك التين يقول لهم بدل سكوتة ولا حاجة ولا استعمال في إنجليزي تبدأ سكوتة ولا حاجة ويك شيء يتشجع أنا وأركتره لو حانو أركاه خاطمه إنه يتهمام الشرة إسلام مركانا يدا يسومال اللان wixii khilaafaad ay u dhaxeeyay muddo badan ay garteen inay dhameystaan oo waliba wada hadal ku dhameystaan halkuna wada hadal buu ku yimaadaa sidiisaba dhul geographically yani baaxadiisu aad u weyn tahay bay degtaa maamulkeedu ka taliya isla markaana ay u dhisan yihiin maaragtay structure-kii iyo qaababkii dawladda iyo qaybihii waan taageeraya oo waxaan u arkaa inuu sax yahay qodobkii shalay la baasgareeyay baasha maxamed cadde oo u gartay inay qodobkaasi uu yahay qodob weyn oo meesha ku jira baarlamaanka Soomaaliland saxiyeen labada maamul ee Soomaaliland iyo Khaatumo ee heshiiyaan wada hadlaan baanu taageersanahay bilbaantana ma kareero ma kala laha wada hadallo Soomaaliland iyo Khaatumo البرلمان كشيء صحيح هذا برلمان كسؤال هذا هو odayaasha gobolka Sool mudadweynaha haweenka ragga dhalinyarada dibay soo yeeliyeen baadana shacabweynaha ku dhaqan gobolka Sool waxaan soo dhaweynaynaa guushiisa ay gaareen xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominaya Baasha Maxamed Faarax oo lagu ansixiyay laba maamul wada hadlaan maamulka Khaatumo iyo dawladda dimuqraadiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dadku wax isku afkartaa Soomaaliga waxa la yiraahdo inaguna waxaan dad reereeyay horta asalkeennaba ee koonfurna lixdankii baa loo xaday waqooyi oo loo wareejiyey haddana wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland waa dad isku mid ah magacyada annaga oo kala baxnay waxaan soo dhawaanayaa kalfadhigii shalay baarlamaanka Soomaaliland ay gaareen ee uu hogaaminayo gudoomiye Baasha Maxamed Cadde waxaana aad u taageerayaa wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland aadna waxaa dadku ugu jirtaa dadku inuu wada hadlo masiirka dadka Soomaaliland ama soo saraay yani Khaatumo Allah maamul balarka oo wada hadlaya wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland waan soo dhaweynaa waa guul waa abshir waa barwaan kalfadhiguna si xaq ah u dhacay in shirku dawladda Baasha Maxamed Cadde waan yaayasada waliba in loo banaan baxo waan jecelahay oo ka dhacay magaalada Hargeysa ee ay u fariisteen baarlamaanka Soomaaliland ee lagu ansixiyay wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa waanu noo banaan baxaynaa soo dhawow ninkii ka hadlayay dhalada ee qabyaalada ku hadlayay annagu magacaan u naqaan horta beel cadiib u ahaa magaciisi iyo magaca bihina uu ka guuray wuxuu u guuray Ali Koor u guuray isagana waxa la yiraahdaa inuu bali baa la yiraahdaa ciidamadii waxa laga oran jiray socod ku xaar baa laga oran jiray waxaan doonaynaa marka ninka in laga kaxeeyo ama laga eriyo mas'uulka uu hayo Soomaaliland baan jecelahay madaxweynaha ku codsanayna Soomaaliland ninka kala eriyay fadhigii kalfadhiga Khaatumo iyo Soomaaliland annaga Khaatumo hay dawladdan hay Soomaaliya kama aragno taageero ninka araba tiisaan arweyn hadalka Baasha Maxamed Alkaso weydiiyay baarlamaanka in isku raacay waxaan Khaatumo iyo wada hadlayaan iyo Soomaaliland halganka iyo baarlamaanku go'aamada ay gaareen soo saareen baanu taageersanahay oo gaashaanay Maxamed Xuseen Caqaaye aan taageersanahay hadalkii xaal Maxamed Baasha Maxamed Cadde oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ka soo yeeray
ee khaatumo iyo Soomaaliland wadahadalkooda taageersanahay haddaan nahay reer Laascaanood ninka diiya waa nin fidno waxaan leenahay hal la qabto ummadda hal la qabto waxaan leenahay waanu ku raacsannahay waanu ku faraxsannahay in ay wada hadlaaba heshiiyaa la yiri colaad iyo dagaal waxba tarbeysay wax walba lagu heshiiyay ayaa wanaagsan waxaan la hadlayaa ninka xildhibaanka ka hadlay maxay tahay Hargeysa waxaa ku leeyahay dhulbaahanta qayb sama baahno reer hebel iyo reer hebel looma baahno ninka isku duubayo midka ka dhigayo kaasaan anagu raacsannahay inaad hadalkaaga u fiirso kana fiirso ayaan ku leeyahay aad baan uga xumaadaa hadalladaada TV-ga aad ka hadlayso wada idamqaa dhulbaahanta waxa kala saarana waan ka soo horjeednaa taageeraynaa ansixintii shalay ee ansixiyeen golaha baarlamaanka ee Hargeysa ee uu shirgudoominayay Baashe Maxamed Faarax waxaan aad soo dhaweynaynaa shirgudoonkii gudoomiye Baashe Maxamed Faarax hadaladiisii ahaa in ay laba maamul oo walaala oo derisay yihiin Khaatumo State of Soomaaliya iyo Somaliland ayna u wada hadli karaan laba maamul oo walaala ah aad iyo aadna waan soo dhaweynaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin أنا أقول لك هذا عن قبل كسول عن سود وينيا ولا هذا الله خاتمه يا سومالان أنسحين في برلمان كسومالان يقولون أنسحين إن لو ما عملوا ولا هالله بقول كل بقول سود ويننا وأنا كفر حسنا